waxaan rabnaa siday ummadda uga farxiyeen 66 sano ka hor haddana inay uga farxiyaan waxaana lagu farxayaa midnimo ummadda Soomaaliyeed kuma farxin in hogaamiye Soomaaliyeed inta tago Bayt al-Maqdis oo yiraahdo waa caasimadii Israa'iil oo yiraahdo kuma farxin runtii ummadda Soomaaliyeed way ka naxday waxaan walaaleen ku codsanaynaa in aysan mar dambe ummadda Soomaaliyeed ka nixin meeshii laga filayay ee laga yaqiinay meeshaasay dadka Soomaaliyeed ka filayaan waxaan aaminsanahay boqolkiiba 99 dadka reer waqooyi Soomaaliyeed reer Somaliland mowqifkaas ma qabaan walaalihii arrintaas xoolaha ku qaldamay waxaan ka codsanaynaa inay ka laabtaan jidka xaqaa inay ku toosaan xaggaa kama jirto baash wanaag oo dhan xaggaa kama jiro wanaag oo dhan midnimo Soomaaliyeed ku jira wanaag oo dhan walaaltinimo ku jira wanaag oo dhan Soomaali oo mid ah oo xor ah oo gob ah oo gobnimo leh ayuu ku jira haddii sida la sheegay weligeedna la sheego haddii ay jireen waxyaabo qaldamay waxa waajib inaan saxno diyaar baan nahay waan saxaynaa laakiin yaynan waraabo u gelin yaynan balaayo u gelin adoo walaalka ka cararaya waraabaha u tagin taas waa su'aashu fariintu waa midaas waxaa kale oo aan runtii aan madaxweynaha uga mahadcelinayaa inuu taariikh qoray caaw taariikh inuu qoray dad badan oo Soomaali meelahan kama ay filayn inay taariikhdaas ka imanayso laakiin runtii waxaad moodaa bisaylka runtii reer Galmudug madaxdu waxay ka timaadaa bulshada sida aad tihiin baa laydinku xukumayaa sidaas ayay ahayd atarku sida aad idinku tihiin ayuunbay xukaamtiin ee dadka xukumaya noqonayaan marka haddii madaxweyne qoorqoor uu jid sax maray macnaheedu waxa weeye shacabka reer Galmudug baa jid sax socda